kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee sheekadii ma waxaan u dhintay jacaylkii Negaad. haddaba daawadayaal intaynu qaybta shanaad ee sheekada anbaqaadin aan hal iyo laba ka xuso aragtida daawadayaasheena ee qaybtii hore ee sheekada ka dhiibteen inagoo markasta uga mahadcelinayna daawadayaasheena siday inoogu soo hambalyeenayaan iyo siday barnaamijyadeena ugu xiran yihiinba. udgoon dumar ayaa tiri sheekada Negaad wax badan baan sugaynay, mahadsanid aayaha nolosha TV la soo dhaqso qaybta shanaad. sidoo kale waxaa aragtidooda ka dhiibtay asxaab ay ka mid tahay Ilhaan Muxudiin. waxay tiri mahadsanid walaal, in badan baan sugaa sheekada noo soo geli qaybta shanaad. Cabdimaalik ayaa ku soo koobay fikirkiisa qiso macaan uun kaliya. aad baad u mahadsantihiin asxaabta dhammaantiin. waqtigoo aad cariiri inoogu ah aawadeed waxaa suurtagal ah inaynu xilliga saxda ah sheekada soo gelin weyno, laakiin markasta waxaynu ku dadaali doonaa in xilliga ugu macquulsan aynu idinla wadaagno sheekadan tixanaha ah. qaybtii afraad ee sheekadu waxay inoo maraysay Filsan oo ahayd gabar ay Cabdullaahi isku dhow yihiin oo istiri bal ka wardoon maadaama ayan waayadan isarag. Cabdullaahina maalmahanba wuxuu ahaa bukaan socod aan ilinka guriga ka degin. isbariidin kadibna waxay u soo dhaqaaqeen qolkii fadhiga iyadoo Filsan cabaar la jiibisay hees ka bixaysa raadiyaha oo ay erayadeeda ka mid ahaayeen ifka intaad ku nooshahay kaa ooli maayo, in nin kale arooskii kuu abaabulayo oo ridiisa noqotaa waa mid aan ahaanayn. waaw ayay tiri Filsan, war sidaas Negaad warka ma ugu dhiibtay iyadoo dhoosha ka qoslaysa. laakiin Cabdullaahi warka kama degin isagoon juuq u odhan ayuu inta madbaqa galay u soo sameeyay shaah ayan ka codsan isaguna weydiin, isagoo inta rooti qalalan afka gashaday shaaheedii u keenay. aad baan walaal uga xumahay siday gabadhaasi kuugu ciyaarayso, wallaahi araggaaga waan ka naxay saaka ayay ku tiri iyadoo u muujinaysa dareen saaxiib oo naxariisi ku laran tahay. Cabdullaahi oo madaxa ruuxaya sidii dhalaan waalidkii la hadlayo ayaa ilini soo dhaaftay indhihiisa. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha, ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV. inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka goyn xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. cid uu ku dul ooyo ayuu show dhowr toddobaad u jeel qabay. jacaylka Negaad Cabdullaahi waxaa u dheeraa inuu keligii ku noolaa guri oo saaxiib iyo walaal la degan oo uu la wadaago xaaladiisa, ugu yaraana u boogdhaya maanu lahayn. iska dhaaf inantaas magaceeda iska ilow, waayi maysid gabar kale oo aad guursato. ogow xitaa haddii aad guursato oo aanay iyadu ku jecleen, wuxuu jacaylkiinu noqonayaa mid dhinacun ka jira oo dhan u raran. kaasi jacayl ahaan maayo. waan ogahay in aan in badan kugu idhaahdo inantaas guurso, laakiin haddana wallaahi sida ay kuula dhaqantay ma jeclaysan ayay Filsan ku waanisay Cabdullaahi. waase hadduu leeyahay dhego u dulee waanada oo dhowr maroo hore ayuu isku waanshay isaga har inantaa, waase dhici weysay. Cabdullaahi ayaa ku cawday, soo ma ogid Filsanay inaan gabadha jeclahay? haa, laakiin haddii aanay ku doonayn maxaad yeelaysaa naftaada inaad aawadeed u dhibto? madowba ayay Filsan ugu caqli celisay Cabdullaahi. wuu u garaabay hadalka Filsan. haddii Negaad ku erido ma ka samri kartaa, mise waxaad naftaada dhamacda u saari doontaa jacaylkeeda kugu fogaaday? miyaadse doorasho leedahay horta? ayaa niyadiisa ku soo burqatay. ka dhuuma Filsan oo horta Negaad dhan kale uga wareeg ayaa gashay. si kale wax u tus, bilay kuu qalbi jileecdaa, bilay kuu soo jeesataa ayuu iska dhaadhiciyay Cabdullaahi.
taladii Filsan inkastoo ay la qurux badnayd haddana ma uusan qaadanin ilaan jacayl baa hogaaminayay dhinac kale bal Negaad uga wareeg ayuu isyiri waxa timid maalinta jacaylka adduunka wuxuu beegsaday maalinta jacaylka wuxuu Negaad u dalbay laan ubax ah oo midabkeedu dhiin yahay nanac sida wadna loo sameeyay wuxuu inta u raaciyay fariin kooban oo nuxurkeedu yahay inuu Negaad naftiisa ka jecel yahay oo uu doonayo inay oori u noqoto ubadna u dhasho wuxuu ku talagalay in marka hadiyadaas ay hesho uu martiqaad u fidiyo waxaase ku dhacday cilad dhinaca farsamada ah qoladii uu hadiyada ka diray ayaa taleefankoodii ka qaban waayay wuxuu garan waayay in inantii ubaxii casaa gaadhay iyo in kale habeen ka mid ah habeenadaas oo uu weli meesha ay hadiyadii martay baarayo ayay taleefon u soo dirtay Negaad xageed ka dhacday ayay ku tiri laakiin ujeedada ay su'aashaasi lahayd ma uusan fahmin in ay leedahay maxaad isu qarisay oo fariintii uga daba imaan weyday iyo in ay iska wareysanaysay ayuu kala saari waayay saddex maalmood oo xiriira kolkuu garaacay qolyihii uu hadiyada ka diray ayay u soo jawaabeen waxayna u sheegeen inay hadiyadii geeyeen maalintii bishu ahayd 14 waxaana halkaas ku kala daatay qorshihiisii maalinta jacaylka martiqaadkii uu ubax raacin lahaana iminka munaasib maaha Abdullahi oo arintaasi ka qaaday dhakafaar iyo dhabanahays ayaa waxa uu ku hadaaqay erayo ay ka mid yihiin laan yahay miraha laalaadisay liiliicaysay libin yahay dartaa waxaan ahay nin lumay intuu leeca koray laamaha jacayl ay la soo jabeen laan yahay miraha laalaadisay liiliicaysay ma waxaan u dhintay jacaylkii Negaad waa sheeko jacayl oo qalbigaaga dhaqaajinaysa waa tabintii Nuur Shariif shaacir waxaana qalinka u qaatay abwaan Cabdullaahi Cawad haddaba si aad uga bogato waayihii jacayl ee Negaad iyo dibadahan uu caalamku ka heshay subscribe sar channelkeena Aayaha Nolosha TV lana soco habeen kasta oo ahad ah qayb kamid ah sheekada